faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal saacado badan qaato oo maanta ka dhacay degmada Ceelberde ee gobolka Bakool. dagaalkan ayaa waxa uu u dhaxeeyay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo kuwa militariga Soomaaliya. dagaalka ayaana sida wararku ay sheegayaan waxa uu isku bedelay qaab qabiil, waxaana magaaladaasi ilaa ay hadda isku hor fadhiyo ciidamadii dagaalamay iyadoo xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan. tirada dhimashada iyo dhaawaca soo kala gaaray dhinacyadii dagaalama ayaa warar hordhac oo aan helayna waxay sheegayaan inay gaaraysa 14 ruux, halka tiraintaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale dadka deegaanka ayaa waxay isku dhacyadaani labada ciidan ka soo gaaray khasaare aad u badan, maadaama qoryaha la isku adeegsanayay ay ahaayeen kuwo culus, dadkana ay degan yihiin guryo aan xabadaha celin karin, goobaha lagu dagaalamana ay ka agdhow yihiin. dagaalka ayaana dadka deegaanka waxay sheegeen inuu ka bilowday askari lagu dhaawacay bartamaha magaalada, taas oo keentay in labada ciidan ee labada dhinac u kala safteen, sidaasna uu dagaalku ku bilowday. xiriiro kala duwan oo aan la sameynay maamulka gobolka si aan wax uga weydiino dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa suurtageli weysa in qadka teleefoonka aan ku helno. hore magaalada Ceelberde ee gobolka Bakool waxaa uga taagnaa khilaaf dhanka maamulka, iyadoo dhowr mar isbedelo lagu sameeyey maamulka degmada, taas oo keentay khilaafka siyaasadeed. odayaasha deegaanka ayaa la tilmaamay inay hadda ku guda jiraan sidii xiisadda dagaal ee degmadaasi ka qarxada loo dejin lahaa, loona kala qaadi lahaa labada ciidan ee isku hor fadhiya gudaha degmada Ceelberde ee gobolka Bakool. dagaalka ka dhacay degmada Ceelberde ee gobolka Bakool ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalintii Isniinta ee toddobaadkan uu ka dhacay dagaal saacado badan qaato oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan militariga dowladda Soomaaliya iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed magaalada Baraawe. arrintaas oo maanta buuq ka dhalisay kulankii maanta ee xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, inkastoo guddoonka golaha shacabku uu sheegay in guddi baaris loo saari doono. gacanka hadalka dhexmara labada ciidan maaha mid ku cusub deegaanada iyo degmooyinka maamulka Koonfur Galbeed. inta badan xiisad iyo isku qabsi maamul ayaana dhexmara ciidamada jooga deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, laakiin hadda waxaa su'aalay ka taagan tahay maxay ciidamada dowladda oo uu haysto dagaal kaga imaanaya al-shabaab ee isku gujeysanayaan xilligan. ma jeceshahay barashada luqadda Ingiriiska balse ma u weysay fursad aad ku xaadirto fasal caadi ah ama offline ah? haddaba Fahn Academy waxay ku haysaa xalkii aad kaga gudbi lahayd caqabadaas ka hortaagan barashada luqadda Ingiriiska. waxaynu si online ah waliba aad u fudud kugu bari doonaa Ingiriiska adigoo gurigaaga jooga, waqti kasta iyo meel kasta aad dunida ka joogto. waxaynu idiin diyaarinay manhaj dhammaystiran oo ka kooban 3 xir oo kala ah Basic English aynu ugu talagalnay ardayda bilowga ah ee aasaaska ah, Speaking English aynu ugu talagalnay ardayda doonaysa inay bartaan ku hadalka luqadda Ingiriiska, iyo Grammar oo ah naxwaha luqadda Ingiriiska oo dhammaystiran. si aad u hesho warbixino dheeraad ah iyo tusaalooyin, la xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqda. mahadsanid.